بسم الله الرحمن الرحيم دمان ومهتنيين جدّجا جرمتك قرن ولا له أن التركية أو مصيبة أي ربانية كل عضي رئيس وزراء الجمهورية دوم مجعبي وعاو هل كان جوجا ما أنتوا جمعنا شقيناي سيدا دكتهين وحالي رئيس وزراء الجمهورية دوده فري كلن لسقوكاني liidka ummadda Soomaaliyeed oo qaybaha kala duwan oo bulshada isugu jira oo guddigii uu ra'iisul wasaaruhu sameeyay kulankaas uu soo qaban qaabiyay loogana hadlayay sidii maaragta ummadda Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa inay garab istaagaan walaalahooda Turkiga oo taariikhdooda iyo waxqabadkii dalka Soomaaliya wixii ay la garab istaageen laga soo sheekeeyay qof kasta Soomaaliyeedna uu ka dharagsan yahay marka guddigii caawa halkan ay joogan maanta jimcaha shaqeynayeen annaguna qaybaan ka ahayn hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir waxay go'aansadeen guddigu inay shaqadooda si toos ah u guda galaan maadaama xalay laga dhawaajiyay muddo yar oo kooban in la rabo in fayska koowaad lagu gaarsiiyo dalka Turkiga wixii loogu talagalay oo dawladda Soomaaliyeed oo shacabkeeda kaashanayda ay ugu talagaleen sida darteed waxaan la xiriireynay bulshada qaybaheeda kala duwan shaqooyinkii la kala qaatay marka maadaama guddigu hawshiisa uu guda galay waxa ka mid ahayd hawshooda maantay inay la xiriiraan madaxda dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir oo asaga laftirkiisu ka mid ah markii la fiiriyo maamul ahaan dawlad goboleedyada Soomaaliyeed markaan tashanay gudoomiyaha gobolka oo ku maqan shaqo banaanka iyo saaxiibada kale oo ayaguna gobolka Banaadir madaxdooda ka mid ah waxaan go'aansanay gudoomiyaha gobolka oo qadka la soo galiyana guddiga markii aan tashanay hortooda maxaa yeelay madaxda dawlad goboleedyada hal loo wacay wuxuu ka mid ahaa dadkii la wacay aniga oo wakiil buuxa ka ahaa madaxda maamulka gobolka Banaadir oo duq u sareeyo waxaan ku dhawaaqnay ama aan go'aansanay inaan bixino taakulayntii koowaad ama yaboohii koowaad oo sidii xalal la sheegaba lacaga meesha laga ballan qaaday 5 milyan in fayska koowaad la gaarsiiyo walaalaheena maaragtay ama dawladda Turkiga musiibadii ku dhacday inay dawladda Soomaaliya uga jawaabto lacagtaas dadaal lagu kala qoray ganacsatada Soomaaliyeed waa tii sheegtay 3 milyan xukuumaduna waa tii tiri 1 milyan annaguna ku darayna 1 milyan oo kale ayaa la rabay si degdeg ah loo rabay halkaas milyan ayaa marka dawlad goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed oo la isleeyahay markaas si degdeg ah uga qayb qaadan karaan loo wacayay maamulka gobolka Banaadir marka wuxuu ku yabohay $250,000 inuu uga qayb qaadanayo lacagtaas 1 milyan oo sida degdeg ah loogu baahan yahay maadaama 4 milyan oo kale la malaynayo ama la ballan qaadaba in waqtigaas lagu helayo marka lacagtaas aan rabaa halkan inaan ka sheego waxaan rabaa inaan intaas ku daro dadweynaha gobolka Banaadir degan oo qaybaha kala duwan oo degmooyinka gobolka Banaadir uu ka kooban yahay lacagtaas dabcan markii horena adinka in ka timid haddana maamulka gobolka Banaadir adinku ku matalay laakiin lacagtu intaan kuma eka doonto waxa la rabaa dadka gobolka Banaadir degan iyo maamulada degmooyinka intuba inay sidii fayska labaad ay uga qayb qaadan lahaayeen oo waliba si xoog ah ay uga qayb qaadan lahaayeen in ay maaragta falankeeda galaan akoonadan uu guddigu uu sameeyana qof kasta oo Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan inay ku soo shubaan qof kasta awoodiisa waxa ay tahay $1 iyo wixii ka badan intaba haddii $1 qof walba uu ku soo shubo waxay noqonaydaa lacag aad u fara badan gobolka Banaadirna waxa lagu qiyaasaa inay degan tahay dad kor u dhaafaya 3 milyan iyo bar macnaheedu marka haddii xataa la yiraahdo barku ma awoodaan waxaan aaminsanahay in 3 milyan ay awoodo $1 inay soo tuuraan marka waxaan ka codsanaynaa inay walaalahooda Turkiga garab istaagaan dawladda Soomaaliyeed sharafkooda iyo cisigeeda ay kor u qaadaan
dadka Soomaaliyeedna la ogaado inuu noqdo inuu yahay dad qiimo leh kaligiis aysan gacantu maaragta u taagnayn wax bixi kara